لا وجهي برا وجهي برا وجهي برا وجهي أنا ساعتها سوى عرض وجهي هنا يقرأ كذا القناة دي يحيينا يحييها لك هادي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا شرفت لما رشحوني كنت بينا بعض الصحافة الأمان شعب صور رجال البرتين وحن جعلنا مانتا إن الأولى بسوا سوكنا أرميه سجالة مكي كدعي لما نروح لحد الدور شوي أنا أقول مريو سودان وراء الشاقنا بقى ظهرات وعقد السوري وفق صنع الأمانة الإقليمية ما هذا يكون عبر عيان رأي بسنة ولا لما صار قليل يولدنا وحواجب وعلي إلى عرس لكن سجالة ممكن وحاط عين مسيطره ودايق على جيل تقوى وضعكم كل الحلال هو وين كسر قطي وجعلها إنك تقدر بعثر مظاهرات شخصنا ولاد إلا شو اللي يملكوا ناس تضع كل يوتي تضع كل نوعين انتيار كل قطي وما أيها العبد الكبير ولنا
ma muuqato garaabasho in kala dhacay. marka waxaan rabnaa inaan caddayno inaanan ka tanaasulin mowqifkeennii iyo mabda'eennii iyo xuquuqdii aan u taagnay sharci oo ahayd in uu suuro galo banaanbax nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ay ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahayd طلعت طلبيين dadka qabsan insha Allah tabaaraka wa ta'ala maalinta Jimcaha. marka dadka Soomaaliyeed meel joogan waxaan u baaqaynaa inay ka soo qayb qaataan. haddaan maanta xaqiijin weyno 60 iyo dhowr sano kadib inaan banaanbax nabadeed qabanno macnaheedu waxa waaye dariiqa dowladnimada waxaa hor taagan caqabaad iyo diktatoriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin. dowladdu waxay ku dhisan tahay mabaadi'da ugu horeysana waa xurriyaadka dadka. xurriyaadkaasna waxaa kafaalo qaaday sharciga. dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda. taas waxaan rabaa halkaas in caddeeyo. arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkaan jooga dhammaantood waxay ka shaqeynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto si nabad ah, isfaham iyo ilaalinta sharciga ama saraynta sharciga ama dastuurka. marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto. waxaad ka garan kartiin annagoo joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhacayo wax ka badan aan sameyn. waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliyeed codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo. taas ayaa dhacay. mabda'aas mabda' cusub ma aha, waa mid shalay aan aaminsanayn, maanta waa aaminsannahay, beri waa aaminsannahay, waa la noolaanaynaa, waa la dhimanaynaa, dadka lagu yeeri. waxaan aaminsannahay maalintii qarannimada Soomaaliya la aasaasay oo xorriyadda la qaaday mabda'aas haddii lagu adkaysan lahay oo faragelinta ciidanku aysan imaan lahayn maanta Soomaaliya meeshaan meel aan hayn. marka ma oggolaa karno 30 sano oo burbura kadib in haddana ay timaado in sharciga loo hoggaansami waayo, awoodda dowladnimada lagu takifalo doorashada meesha ka dhacda. waxaan rabaa inaan idiin sheego cid aan u wakiilanay hadalkeena iyo aragtideena oo annaga naga turjumayso oo warka hadda aan sheegayna war khilaafsan intay sheegto annaga noo misbay karta meesha. warkaas in la fahmaa maray waa golaha maxaa leeyahay golaha murashaxiinta. qofku ama wuxuu ku hadli karaa magaca murashaxa naftiisa ama magaca golaha. waxaana wada khuseeya midka guud ee aan ku wada hadlo. iska daa marka qof kale oo ka baxsan murashaxiinta, qof aan xil u haynin, murashaxiinta aan ka tirsanayn, afhayeen aan u ahayn ayaa hadlay annaga dhiiggeena loogu banaysan. waxaan u malaynayaa aragtidaas waxaa. midda labaad waxa waaye midda saddexaad waxaan rabnaa inaan u mahad celino labada madaxweyne goboleed, madaxweyne Saciid Maxamed Dani, Saciid Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne Axmed Madoobe. informationka iyo mawaaqifta Soomaalinimada dadnimada leh ay la wadaageen dadka Soomaaliyeed oo aan hore caado u haajin aad iyo aad ugu mahadcelinayo. waxaan aaminsanahay inay tahay mawaaqif adkeynaysa dowladnimada Soomaalinimada iyo in laga run sheego geedi socodka nabadeed ee aan doonayna in ay ku timaado doorashada. waxaan rabaa inaan u gudbo qodobka saddexaad. waxaa wada ogtihiin madashaan waxay soo dhaweeyeen heshiiskii 17 September oo ka dhacay Dhuusamareeb. qayb kama ahayn, kuma qanacsanayn waxa lagu soo heshiiyey. dadka danleyda ah oo doorashada galaa ayaga ahaayeen waxay ahayd in la tixgeliyo, mana dhicin. laakiin haddana waa soo dhaweeyeen. waxay u soo dhaweeyeen heshiis jacayl cusub. waxaan aragnaa
17 September inay sii dhimanayso waxayna usii dhimanaysaa in reality-ga la iska indhatiraayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaay oo ku jira in la xalliyo inaan waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun military waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed loo carbiyey inay ciidan noqdaan military police nabad sugid iyo maxaan ku ilaalada ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi' dowladnimo mabaadi'daas hadday ka leexdaan fal kasta oo ay geystaan waa dambiilayaal marka waxaa rabnaa inaan ugu yeero shalay iyo maanta ciidanku isma bedeli karo maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanayn intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa oo marka qaban ila madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaaday madaxweynaha ayaa askariyaha guud ee ciidamada madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaaday sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la qaadi marka 4 sano waa dhamaaday yaa u taliya marka oo waxaan dhacay mas-uuliyadda la qaaday hadday dhacdo ruux waqtigiisii dhammaaday inuu amar bixiyo khaldan qofkii amarkaas fuliyey iyo qofkii sameeyo dembigood waa laba hadlaya waxayna noqonaysaa dembi ku talagal iyo ujeeddo loo kale arrintaas waxaan leenahay waa arrin khatar ku ah qarannimada Soomaaliya inay sii socoto dowladnimada inay sii socoto waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiro dowlad xoog ku dhisnaa kartaa ma jirto tajaaribta adduunkaana tustay annagaa hore soo marnay dowlado badan Afrikaanaha soo maray kuwa Carabaha soo maray kulli waxay ku dambeeyeen meel aan fiicnayn marka waxaan ku laabanaynaa tii hore mase waxaan saxaynaa khaladaadka dhacaya maanta anagu u jeed waxaan saxaynaa khaladaadka waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta inaan joogno xilli aan saxi karno maxaa yeelay xiblad waxaan u leenahay wixii soo dhacay oo dhibaatada ahaa iyo burka marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waa inay u hoggaansamaan sharciga faraha kala baxaan siyaasadda ciidamada qalabka sida dhammaantood waa inay u hoggaansamaan sharciga kala baxaan siyaasadda faraha waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhalinyarada Soomaaliyeed ee diiday inay faldambiyeedka la amray ay ka qayb qaadato baal taariikha oo dahabi ay ku qoran yihiin waxaana u aragnaa waa inay ka qayb qaateen dhismaha qarannimada bushaaraa lay siiyey askaraa layga dhigay dowladnimo kuma dhisan dowladnimo waxay ku dhisan tahay aragti falsafad iyo waxay ku dhisan tahay mabaadi sharci dowladnimo ku dhisan tahay marka waxaan rabnaa inay u laabtaan wax saxda waxaan rabaa inaan u gudbo madasha madaxshaqeynta dhammaantood waxay jeclaan lahayn beri doorasho beri dambe iska dhao beri laakiin inay noqoto doorasho xur ah oo xalaala oo laga wada qayb qaado waxaan aaminsannahay xallinta khilaafaadka ka dhashay heshiiskii 17 September maalinba maalinta ka dambaysa khilaafku waa sii fogaanaya maanta waxay taagan tahay dowlad goboleedyada shala qaybka inay yidhahdaan kama qayb gelin taas waxay koosgaraynaysaa doorashadii inaysan dhicin marka waxaad isweydiisaa kala fogaashada ayaa mas-uulka ah yaa la rabaa dalka inuu isku haayo yaa la rabaa dadka inuu isu keeno yaa la rabaa dadka inuu isu tanaasuliyo yaa mas-uuliyaddaas way saaran tahay waxaan u maleynaha inaad mijaabka u baahan waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed maanta waa maalin muhiim waxaa samaysmaya taariikh Soomaaliyeed laba dariiq aan noo furan dariiqa sharci aan ku dunno inaan marno iyo kan kaloo saxda oo dimuqraadiyada oo wanaaga isu tanaasulka inaan marno labadaas waxaan rabaa inaan dooranayno midka kale awood fara badan iyo hub fara badan
ciidan fara badan iyo dhaqaale fara badan xaqa laguma fiiriyo dowladnimada laguma fiiriyo waxaa lagu fiiriyaa mabaadi ay haysan marka anagoo ka duulayna mabaadidaas dowladnimo annagoo ka duulayna adkeynta sharciga annagoo ka duulayna wada jirka ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay madaxda halkan joogta waxay qeyb ay ka soo qaateen dhisidda dowladnimada haddana waxaa lagama maarmaan ayaga iyo dadka kaloo muhiimka ah inay qayb ka qaataan maxaa yeele dadkii soo bilaabay waa ku kala tageen waa ku kala ku duwanaadeen waktigeeni waaye annaga aan farxinay aad iyo aad u maxsantiin wasalaamu calaykum هجر صح هو اللي كسر هجروا يا وين انت انت تبع ضبطه ومالين كله وأن المظاهرات إنه شعب الصوماليات أو وكيل وجنهاي أتكلم عن الشرق نفسه. marka waxaan rabnaa in la soo baxo barkulankeennuna waa sida la sheegay istixsoon iyo intaasoo dheer oo waddo kasta iyo jid kasta inaan ku soo baxno irid kastana aan ka mudaaharaadno ayaa ballanteeda waxaan saas u yeelaynaa madaxweynaha xilkiisa dhammaaday yaa wuxuu rabaa Soomaaliya inuu kala dooransiiyo dagaal sokeeye iyo dictatorship aan kaligay taliyo ama dagaal sokeeye gelina labadaba inaan isku awood isku caqli isku maskax isku maal ku diinaa wadahno kala talisna ma jiro dagaal sokeeyana ma ogoli sidee ku dhici kartaa marka waa mahadsan yihiin madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo mowqifkaas caddeeyey oo damaca farmaajo caddeeyey sidii hoose ula sheekaystay iyo sidii kore intaba waxa uu damacsan yahay diidayna inay qayb ka noqdaan ajandihii Soomaali lagu kala geynayo aad ay u mahadsan yihiin fariinta digniinta ay noo soo direenna waa uga mahadcelinaynaa annaga waxaan ka rabaa inaan diidno inuu labadaasna kala doogasiiyo ayaga qaybtoodii way diideen annaga qaybteena waxaa waa inaan ku diidno mudaaharaadka hadalka dooda nabadda isku soo baxan ku diiday oo leenahay maya taas annaga inaan ka gaabino marka maaha waddada kale nagu jiidaayo ma ogolin waan ognahay dadka taageerayaasha nooca dadka musharaxiinta halkan taageerayaasha ah inay dareemayaan inaan ku gabadfalayno oo u muuqano dad daciif ah oo wax iska celi karin oon yac iska dhihi karin daandaansiga oo dulmiga aanan iska saas laakiin arrintu ma ah taas annaga uma socono waa midda la rabo inay ku jiido shacabku inay ogaadaan waa midda aan ogolayn inaan ku wada jiidano oona doonayo farmaajo inuu noo jiido annaga waxaan rabnaa nabadda iyo mudaaharaadka iyo hadalka awooddiisa inaan wax ku bedelno adduunkana waa lagu bedelay waana jirtaa midda kaloo meesha ku jirtaa waxay tahay cid kaloo isku halaynayna ma jirto oo annaga aan ahayn laa beel caalamaan jirin waa nimanka u durbaantumaya farmaajo oo xilligiisii dhammaaday waxaa aragtayna sameeyey cidda weli la shiraysa oo mas-uuliyad iyo sharciyad inuu leeyahay kula mucaamilaysa waa beesha caalamka ma sugayni waxaana kaloo sugayni dad aan isleenahay oo kaloo haddeerta inii maqan oo caqli iyo garaad inay yeeshaan ku soo baxaana hadda ma sugayni mana muuqato haddeerta hadday imaato waa ilaahay mahaddiisa waxaan rabnaa marka inaan hoosta ka xariirno 19 wixii dhacay Febraayo waa wax annaga aan ku degannahay ilaa meel la saarana meel loo dhaqaaqay aysan jirin doorasho iyo doorasho la'aan iyo horaha loo socdo iyaan loo soconin waxay ku xiran tahay 19 wixii dhacay habeenkeedii oo madaxweynayaasha gadaashii taagan la weeraray iyo maalintii oo inteena kale saa ogtiin jidkan anagoo ku mudaaharadeenu ku xabadiyey arrintaas waa in meel la saaraa hadday tahay golo ammaan hadday tahay beel caalam hadday tahay Soomaali hadday tahay gobollo hadday tahay dowlad federaal waa in arrintaas meel la saaraa
iyadoo meel la saarin arrin la isaga tilaabsan karo maaha iyadoo la mudaharaadi karin doorasho lama qaban waa in la mudaharaadi karo si nabada markaan taas xaqiijino iyo doorashada ku xigtaa alleen doorashadu soo ololo maaha soo campaign maaha soo siyaasad maaha soo dadla kulan maaha haddaan dadka lala kulmi karin oo la mudaharaadi karin oonan si nabada loo soo bandhigi karin ra'yigaaga doorashada la gelaayo maxay tahay tii Kim Unjin maa dhihi jiray ninkii ka tali jiray koonfurta kuuriyada waqooyi miyaa doorashada la gelaayo mise midda afwarki waayo annaga doorashada afwarki oo kale ma rabno doorasho waxaan rabaa dadku ay tartamayaan xor yihiin tii maxamed cabdullaahi farmaajo hoteelkan subaxii ka tegey galabtii la doortay taasoo kale rabna annaga inay dhacdo marka waa inay dadku ogaadaan arrintaas waxaa kaloo rabnaa inaan ka digo farmaajo xalay fashilmay qorshayaashiisii ahaa doorasho maaweelo ah oo been ah inuu nagu dul hayo oo waxba ka jirin xalay hadalkii madaxweyne Siciid wuxuu fashiliyey doorasho been ah oo madadaala inay meesha ka socoto ajanda kale oo ciidan iyo xoog iyo dadka in la terrorize gareeyo loo awood sheegtana oo dhinac socday farmaajo waa fashilmay qorshihiisii waa fashilmay wuxuu aadi doonaa inuu komid gareeyo ama uu ku dhaco isqarxintii ama suusaydkii ugu dambeeyey oo ah inuu dadkaa mar kale soo weeraro madaxda meesha taagan inuu dadka ikhtiyaalo keensado inuu sida hadda la sheegaya shabaabka uu la macaamalayo shabaab soo isticmaalo waxaan u baahanahay dadka reer muqdisho inay digtoonaadaan oo arrintaas ay vigilant ama ay ka digtoonaadaan muxaawalada ugu dambeysa ama isku dayga ugu dambeeya oo isku qarxi doona farmaajo in loo digtoonaado oo jugta dhacda aanan lagu shoogin ee markiiba dadka kici karo aan noqon arrintaasna waa ka digaynaa waxaan mar kale ku celinaynaa 19 Febraayo wixii dhacay waa wax taagan oo xagga meel looga dulka aysan jirin waxaan ka xunnahay qolada beesha caalamka sheeganaysa ee rabta inay iska dhiga tirto wixii 19 dhacay ay rabta inay moodo suuragal ma ah waa crime weyn waaye oo dalkan geli kartay dagaal sokeeye laakiin tanaasulka dadkan ay ku taagan tahay oo aan ku joognaa marka arrintaas waa mowqif aan ku deganahay oo meel looga dulkaayo jirin waa mahadsanyihiin madaxweynayaasha jeediyey arrintaas kashifay waxaan ka codsanaynaa kuwa farmaajo la joogo waxaan rabaa inaan meeshaan uga baxo Donald Trump markuu xukunka Mareykanka qalday oo kharibay waxaa jira dad la yiraahdo enablers dad asaga u suuragelinaya saas inuu wax u xukumo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suuragelinayo farmaajo inuu saas u dhaqmo dad u suuragelinayo waxaa kow ka ah ciidanka Italiyaasha gudoomiyaha ka hadlay waa ku celinaya waan ognahay saraakiisha diiday amarka guraacan ee dadka in lagu weeraro lagu soo horgeliyo waa naqaanaa wuxuu noo qoran waxna oo lisgaraysan yihiin kuwa yiri warqadii amarka isii waa haynaa ayaga oo la sii waayay kuwa ka gadooday oo diidana waa haynaa kuwa fuliyayna waa haynaa waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada ciidamada ku dhex jirtay la adeegsanayo oo waxa xabadda uu ku ridaa walaalkiis oo yahay ama raggii shalay dalka madaxdiisa ahay ama noqon doono oo yahay inuu arrintaas ka digtoonaado ragga kale ee siyaasiyiinta waa is yaqaanaan ee farmaajo u suuragelinaya inuu saan u dhaqmane fariinaan u diraynaa waxa la isku haysto waa dal masiirkiis waxa la isku haysto waa deegaan masiirkiis inaad damiir yeelatiin oo maanta aad wax ka badbaadisiin ayaan ku baaqaynaa walaashintii wasalaam